بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرت الإسلامي مركز جبتان وصاحب كان تحكي ماستر كود إلى وقت الجوال دي وعنا والله ديال. بسم الله. بعوي مقالة المقدسة سياسة الصومالية بقى محمد دائما شركة سيدة عصو أيضا نغطي مدة كتاك أيضا يعني لكي هاي محمد عبد الله فرماتشو وشركة الأبد بكرة جاي مدة كتاك tilaabada uu qaado baqaad ra'iisul wasaaraha tilaabada uu qaado baqaad la ficiltan halkaas maraysa ninkii nabaddoonnimada sheegay jiray ninkii yani daacadnimada sheegay jiray ninkii yani sheegi jiray in uu yani wadani yahay oo dalka jecel yahay dalka miyuu rabaa inuu dhibaato u horseedo farmaajo dalkan dhibaataha u horseedin dalkan badbaadi 4 sano way dhamaatay maanta yani ninka shaqaynayo oo adiga aad magacawday oo shaqada aad ku wareejisay maanta in ugu dambayso ayaa yani ku wanaagsan hawsha dalkina ugu dambayso maadaama adiga ayadoo aan lagu qasbeen oo baarlamaanka hortiisa aad yani ku wareejisay oo shaqadii dalka yani inuu ninkaas sii daadihiyo oo doorashooyin dalka gaarsiiyo adiga yani afkaada ka sheegay mid ka soo qasabta malahan saasay tahayna ra'iisul wasaaraha waa la aqoonsan yahay bulshada caalamka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaanba waa yani aqoonsan yihiin waxaa marka wanaagsan in odayaa tahay farmaajo in odayaa tahay yani inaadan dalka yani marxalad adag aad gelin inaadan dalka yani aadan dhibaato u horseedin inaad yani uga dambayso ra'iisul wasaare Roble ayay wax walba ku wanaagsan yihiin waa haddii aad tahay nin yani rajo leh oo siyaasadda yani damac wanaagsan yani rajo fiican kale oo dalkani rabo inuu dana mar kale hogaamiyo haddii aad yani qalbigaada sidaa ku jirto waxaa ku roon farmaajo inaad arrintan baagtid سير اسكباج أحنا صوته ولا جراي فرماد نكدي زرزار محمد حسين روبل وكراي وحوي مركز نكرجع هدي لجرايو وحافي عن باشا إنه ضدني ماذا وكراعه وعن كل لا مركز أنا كل توا ومن ضل كان مانت وما بحنا خلاصة سياسات ضل كان وما بحنا إن دبلو عليو ضل كان وباهين هاي إن يعني هراي لاصي ولا marka waxa Abdullahi Farmaajo hawsha hadda yani aad wadid meesha aad ku wadid yani ma aha meel wanaagsan hadda waxa wararka hadda la isla xmaraya inaad soo wado ra'iisul wasaare aad magacaabi rabto oo Cali Maxamed Geedi magacaabi rabto waxaan la yaabanahay markaan Cali Maxamed Geedi asaga ma doqon baa ma laxbaa Cali Maxamed Geedi nin waqtigiis dhamaaday taymkiisii dhamaaday dawladdiisii gabagabowday maanta wax ka shaqeynaa aysan jirin adoo arkayo dalka inuu ninkan yani wixiisa ay yihiin yani fawdo haddii marka maanta uu ku magacaabo ninka la yiraahdo farmaajo ra'iisul wasaare ku magacaabo aqligaada ma waxaad dhihi doontaa ra'iisul wasaare la doortaan oo la magacaabay maxaa Cabdullaahi Farmaajo ay magacaabay miyaad dhiribtaa warniyahow nin odayaa ahayd nin yani waxaad ahayd yani dalkani soo wax ka soo qabtay oo ra'iisul wasaare ma soo maray maanta marka sharafkaadii isu ku ciyaaray maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxaad moodaa in uu asaga sharafkiisii iyo dadnimadiisii uu ku ciyaaray balse anigu waxaan ku dhihi lahaa ninka la yiraahdo Cali Maxamed Geedi sharafkaada ilaasho arrin isku dhamaatay waxba laga qaban karo marka waxa weeye kulleeyba film dhamaada ayaa Cali Maxamed Geedi waxa rabtaa inaad tigid u goosto marka waxaan ku dhihi lahaa baashan way isku dhamaatay farmaajo maanta yani cid ka aqbalaysa ma cid ka yeelanaysa maanta hadduu ilaa ra'iisul wasaare magacaabaya oo kii hore waa iga hor yimid oo danahayga fulin waaye mid kale oo danahayga fulinayaan yani aan magacaabanaya haddii uu yiraahdo kulleeyba cid ka aqbalaysa male Soomaali weyn ka aqbali mayso bulshada caalamkana ka aqbali mayso marka waxaan ku dhihi lahaa aniga kulleeyba ninka la yiraahdo Cali Maxamed Geedi shakhsiyadaada iyo sharaftaada ilaasho تما لو كلا تجي تما لو كلا بديجي ولو كلا بديجي مدان مركن يهو هسكو عيارين ما كل الله عليه ويا هاي وحنا مركن لنا مركن ومدى الصوماليات ما حد ضنوا مركن ومدى الصوماليات ما حد ضنوا مسيدان بان كجرينا مسيدان بان كو ايغانينا ما هولهana u jeedaan la isku turtuurayo oo mid kaleenta yani iska ganaynayo ayaan fiirsanaa haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed waa maya waa in laga hadlaa waa in cadaalad iyo xaq loo kaca waa in dawladnimada la eega
وإن يعني نبض لغا شقيا وإن دل كان سيدو يعني هره وسي سocon lahay aan يعني ka shaqeynaa cid يعني hawshaas wadana aan ku ayidnaa waxaan noo muuqata maanta in hawshaasi ku jiro Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waa inaan garab istaagnaa Ra'iisul Wasaaraha marka Ra'iisul Wasaaraha waa inaan garab istaagnaa waxaan arkahayay kuwa يعني ma aqaan aniga waxay ka damacsan yihiin mucaarad iyo maxaafid iyo mucaarad midna lama oran karo waa kuwa danaystayaal ah oo يعني farmaajo taageerayo oo dhahay farmaajo waa saxsan yahay war heedaha sababtoo ah waxa weeye Soomaalida war ninka taageeraysid hadduu xumaan ku socdo u jeedo qaldan yahay maqaalka ku taageeraysaa waa maya u sheeg waa qaldan tahay inta ku qaldan tahay de laakiin saqaadka iyo xumaanta inaan ku taageerto ma aha taas in lagu taageero maanta Ra'iisul Wasaaraha hadduu qaldan yahay ma ku taageerana qalad anaga ma yani dalkiina dhibaato yani u horseedayo Ra'iisul Wasaare ka joogaan inta waa qaldan tahay saas weeye marka walaalayaal waxa weeye marka gunti iyo gabagabadii waxa weeye dalka kan wuxuu u baahan yahay cadaalad waxaan u jeednaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo inuu cadaalad diidan yahay in uu diidan yahay in lala xisaabtamo gabadhii Ikraan Taaliil ahayd arrimaheeda kiiskeedii dilkeedii in lagala xisaabtamo raggii ka dambeeyay ayuu diiday maxaa Cabdullaahi Farmaajo wax laga sugay maxay ilma adeerayaal Ilaahay baa idinku dhaarsiiyay maxaa Cabdullaahi Farmaajo wax lagu taageeray maxay tahay sheeg ilma adeerayaal gabar masaakiin mustaqbalkeeda lagu ciyaaray nolosheeda lagu ciyaaray ayuu diidan yahay in yani cadaalad loo helo maanta waxaan ka sugay Farmaajo maxaad ku taageeraysaa Farmaajo isheeg midka taageerayo maxaad ku taageeraysaa ilaah baan kugu dhaarshay maxaad ku taageeraysaa warbaashiisa ka noqonin qabyaalad iyo lacag iyo laaluush iyo baqti lagu siiyo iyo ka noqonin ilaahay dartiisa ilaahay dartiisa u taageer oo cadaalada taageer oo cid alaale cidii cadaalada wada taageer maanta Cabdullaahi Farmaajo cadaaladooda wallahi waa taageeraya billahi tallaahi wallahi waa taageeraya hadduu cadaalad wado laakiin uma jeedo gabar la dilay oo raqdeedii aan lahayn raggii ka dambeeyay kiiskeedii yani ayuu maanta hor taagan yahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo gabadha waa gabadhiisii oo kale waa gabar Soomaaliyeed waay maxay taa wuxuu hor taagan yahay cadaalad oo gabadha yani hel lahayd oo wax laga xumaado weeye wallahi billahi tallah sababta gabadha waa gabar walaashay oo kale aniga waa walaashay oo kale mana yeelay aniga maanta in cadaalad yani walaashay maanta dilo raadinayo cid hor istaagtaa waa isku qarxinaya oo wallahi billahi tallahi waa isku qarxinaya marka waxa weeye walaalayaal waxa soo kanta Soomaaliya ki istaaga Soomaaliya hal istaago cadaalada ha loo hiiriyo cadaalada ha la raadiyo maanta waxa u jeedna in cadaalada maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu diidan yahay inuu cadaalad diidan yahay wixii uu sheegay ee been yihiin kadaa'ib uu sheegay ilaahayna ka fogaaday marka waxa weeye cadaalada aan u hiirino gabadhaas walaasheen weeye waa nala dhalatay waa mid nala dhalato keenta laga soo qaado maanta marka qofka diidan inay cadaalad hesho gabadhaasi qofka diidan maanta inay gabadhaasi cadaalad hesho walaalayaal aan dirir walaalayaal wax uu noo haya male wax uu noo sameeyay birina anaga rasaasoo ugu tumanaya xuquuqdeena isla anaga ayuu biri hadan xuquuqdeena ku tumanaya ninka noocaas aan iska qabanno aan hankool iska qabanno aan iska fogeyno cadaaladana aan raadino cadaaladana sempre aan daba fariisano qofka cadaaladda wadana aan ku faylno walaalayaal inta ay ku soo qabaya warkayga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh